ahraamta Giza waxaa loogu talagalay inay abid dhisnaadaan. Dabcan waanay dhacday oo ilaa iyo hadda way taagan yihiin. Qubuurahan aadka u waaweyni waa haraadiga boqortooyadii aasantay ee Masaarida, waxaana la dhisay 4500 oo sano ka hor. Ahraamtani waxay dhacaan duleedka caasimadda Masar ama daanta galbeed ee webiga Niil, degmo lagu magacaabo Giza. Waana mid ka mid ah 7 shay ee lala yaabo ee ay ka tageen ummadihii hore. Faraacinadii Masaaridu waxay aaminsanaayeen inay ilaahyo noqon doonaan geerida kadib. Si ay dunidaas ugu diyaar garoobaanna waxay dhisteen goobo lagu caabudo, ahraam iyo qabuurihii lagu aasi lahaa oo lagu sii diyaariyey wax kastoo ay aaminsanaayeen inay u baahan doonaan markay geeriyoodaan. Mid kasta oo ka mid ah ahraamtan waaweyni waa dhisme ballaaran oo ka kooban qasri boqortooyo, macbad iyo goobo kaloo badan. Halkan waxaan ku ogaan doonaa cidda dhistay, siday u dhiseen iyo waxyaabaha ku kaydsan ahraamta. Fircoonka la yiraahdo Khufu ayaa ahaa boqorkii koowaad ee haram ka dhisa Giza. Mashruucaanina waxa uu bilowday ku dhawaad 2550 sano ka hor taariikhda miilaadiga. Haramkiisu waa kan ugu weyn Giza. Markii hore dhirirkiisu waxa uu dhulka ka sarreeyay 480 feet oo u dhiganta 147 mitir. Haddase intii hore wax yar ayuu ka gaabtay maadaama uu muddo dheer taagnaa. Waxaa la qiyaasaa in haramkani ka kooban yahay 2.3 milyan oo dhagax kasta celceliska culayskiisu yahay 2.5 ilaa 15 tan. Boqor Khufu wiilkiisay Khafre ayaa dhisay haramka labaad ee Giza ku dhawaad 2520 sano ka hor taariikhda miilaadiga. Boqorkan qabrigiisu waa ka muuqaal duwan yahay qubuuraha kale, waxaana ka mid ah taalladan aan ilaa iyo hadda sirteeda la fahmin. Sidaad arki karto, taalladani waxay ka kooban tahay 2 qaybood. Qaybta kore ama madaxa waxay uga eg tahay boqorradii faraacinada, halka jirka intiisa kale lagu shabahay libaaxa. Taalladan oo qarnigii 18aad la soo saaray waxay kumanaan sano ku aasneed dhulka, waxaana la arki karay madaxeeda oo kaliya. Waxaadba moodaa in boqorkani waardiye uga dhigay qabrigiisa, inkastoo aanay jirin caddayn muujinaysa cidda saxda ee dhistay taallada. Haramka saddexaad waxa uu in badan ka yaryahay labadii hore. Dhererkiisu waa 218 feet. Haramkan waxaa dhisay boqor Minkauri oo ahaa wiilkii boqor Khafre ku dhawaad 2490 sano ka hor taariikhda miilaadiga. Meelaha aadka loo qalabeeyey ee haramkan waxaa ka mid ah 2 macbad oo gaar u dhisan oo jidad dhaadheeri soo galaan, ahraam yaryar oo loo dhisay boqorro dumar ahaa. Qolka iyo xabaasha boqor Minkauri waxaa si cajiib ah loogu xardhay farshaxan aan horay loo arag nuuciisa. Boqorkan sanduuqii xogtiisu ku jirtayna waxa uu lumay sanadii 1838. Farsamada dhisme ee loo isticmaalay ahraamtu waa mid aad u cajiib badan oo ilaa iyo hadda saynisyahanada iyo injineeraduba fahmi la yihiin sidii loo dhisay. Waxaa la ogaaday oo kaliya cidda dhistay iyo awooddii siyaasadeed ee lagu hirgeliyey ahraamta. Ilaa iyo hadda inta la ogyahay, ahraamtan waxaa dhisay farsamo yaqaano Masaari ah oo deganaa magaalo si kumeel gaar ah loo dhisay oo fidsaneed bad dhan 18 akre oo ka ag dhow ahraamta. Haraadiga foornooyinkii ay wax ku duba jireen iyo lafaha xoolihii ay qasheen waxaa laga ogaaday inay ahaayeen shaqaalo aad looga taxadaro noloshooda. Haraadiga laga qoday meelihii ay deganaayeen ayaa muujinaya inay ahaayeen shaqaale abaabulan, haysta agab fiican oo ay ku howlgalaan, islamarkaana ku tiirsanaa awood dowladeed oo xoog leh. Raadad laga helay goobaha qadiimiga ah ee Masar iyo diiwaanada lagu qoray waraaqihii hore ayaa muujinaya in rag dooma wataa isticmaaleen webiga Niil iyo marinbiyoodyo kale oo macmal ah si ay agabyo kala duwan ugu soo daabulaan Giza oo ah halka laga dhisay ahraamta. Alaabahaas oo kala ahay dhagxaan adag oo laga keenay Aswaan, qalabyada biraha lagu jaro oo laga soo daabulay jasiirad Ekaha Siinaa, alwaax laga keenay Lubnaan iyo sidoo kale laga soo daabulay daafaha webiga Niil si loogu dardargeliyo shaqaalaha. Waxay u eg tahay in bulshadii Masaaridu ku taageeraysay shaqaalaha saadkay cuni lahaayeen iyo wax kastay u baahnaayeen si ay u soo bandhigaan hantidii iyo awooddii boqortooyada. Ilaa iyo hadda khubaradu waxay ka doodayaan sida saxda ah ee loo dhisay ahraamta. Sirta dhisme ee ahraamtu weli waa dedan tahay, waana laga yaabaa in la gaaro waqti tiknoolajiyadda casriga ahi gudaha ka sawiri karto sida Masaaridu isu saareen dhagxaanta ahraamta. Giza waa hoyga duni hore oo aasantay.
dad badan ayaa u malaynaya inay ahraamtu yihiin xabaalo oo kaliya, laakiin wax intaas ka badan ayaa ku duugan. Xabaalahan la qurxiyey waxaad ku arkaysaa muuqaallo cajiib ah oo dhan kasta ka muujinaya nolosha masaaridii hore. Sidaas awgeed kuma saabsana geerida masaaridii hore oo kaliya, balse waxay sidoo kale muujinayaan siday u noolaayeen. Farshaxanka ku xardhan xabaalahan waxaa ka mid ah sawirrada beeralaydii hore oo dalag beeraya, xoolo dhaqatadii oo howlahooda ku guda jira, kalluumaysatadii, ugaarsatadii, farayaamadii, dharkii ay xidhan jireen masaaridu, waxay diin ahaan aaminsanaayeen, siday isu xabaali jireen, iyo wax kasta oo ku saabsan noloshooda. Qoraallada ay ka tageen ayaad ka dheehan kartaa luuqadihii ay ku hadli jireen. Ku dhowaad wax kasta oo ku saabsan ilbaxnimadii masaaridii horena waxaa lagu xardhay derbiyada xabaalaha ahraamta. Ahraamta Giza waxaa weli ku kaydsan siro badan, welina waxay saynis yahanadu ku wadaan baaritaano. Mar kasta oo wax cusub la ogaadana waxaa ka dhasha su'aalo hor leh. Scan Pyramids waa mashruuc caalami ah oo hoostaga wasaaradda u xil saaran aruurinta taariikhaha masaarida. Ilaa 2015 waxay isticmaaleen tiknoolajiyadda casriga ah si ay u ogaadaan waxa ku jira derbiyada ahraamta iyagoon gudaha u gelin. Waxayna ogaadeen inay jiraan marino waaweyn oo ka bannaan gudaha derbiyada. Ma cadda inay jiraan waxyaabo ku kaydsan meelahaas bannaan, waxaana loo malaynayaa in marinadaas loo isticmaalay intii dhismuhu socday si loogu daabulo qalabkii dhismaha. Dhegayste, weli ma baartay taariikhda ummadihii hore?